الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركور إلهي بمحض سبحانه وتعالى. مرلباد وحن هذه رنتي إلهي ومهد علي هنا ما تشوفنه هود كبرعو من لبص عضاد كرك حكته أما وجرته شن إيو 60 كيلومتر تولوين هلكا كوياله inaan maanta ku bixinayno tuuladani oo la yiraahdo taan hadda taaganahay gorayo ood baa la yiraahdaa laakiin tuulooyin badan baa halkan isku dhex jira maanta iyo tud waliba noo harsan oo aan tagi doona hadii la yiraahdo ilaa 550 qoys raashinkood ayaanu halkan maanta ku qaybinaynaa arigoo ku hadlaya magaca hay'adda Amud Foundation waxaan leeyahay marka hore Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala waxaan had iyo jeer u taaganahay awoodayada inaanu maaragtay caawino dadkayaga abaaruhu ay ku dhaceen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii soo sadaqadaystay Ilaahayna uga baryaa subhanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan leeyahay runtii abaartii farikama qodna baaq waxaan u jeedinayaa dhammaan ururada bulshada hay'adka dawliga hay'adaha international NGOs-ka kuwa localka dhammaan in laga qayb qaato Ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala gacanta Ilaahay baa lagu dhergayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu samadiisa inoo furo arladiisana maaragtay inoo amro Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in uu inoo sii daayo roobkiisa qof kasta waxaan ku waaninayaa in Ilaahay uu soo noqdo subhanahu wa ta'ala haddii aan Ilaahay loo soo noqon gaari mayna halka aynu socono raxmadda Ilaahayna waan seegaynaa marka Ilaahay ha loo noqdo ha la toobad keeno dadkaasi dhibaatada haysata dib ha ugu noqdaan waxa ay yihiin qof waliba isagu haysa xisaabiyo aad iyo halka waxa ila jooga odayaashii deegaanka خير الله سيو هير تولي بنا تاجن تولدان قريات وحنا لجوجا odayaashii deegaanka jooga waxaan la jooga gudoomiye ku-xigeenkii hay'adda qandaraasyada Somaliland oo runtii aan maaragtay soo dhibnay oo maaragtay nacaawi aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u dhiibayaa hadeerto gudoomiyaha alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore Ilaahay baa mahadle halkan aanu joognaa waa deegaan ka mid ah deegaamadan abaarta hayso taanu joognaa waa gorayood waa dad ay ku badan yihiin dadkan dhibaataysan ay xooli ka dhamaadeen ama aan waxba haynin sidaas ayaa loo soo baxnay taakulayntan ay wado Amud Foundation Ilaahay khayr siiye ayaanu inaanu soo caawino la suurtagelino soo raacnay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa marka hore Ilaahay baa mahadle marka labaad nimanka isleeyahay hay'adda Amud Foundation ee ilaa halkan la soo raacay iyo raashin kaliya soo dubaridka baanu mahadnaqaynaa khayr Ilaahay si cid kasta oo ka qayb gashay waa loo ducaynayaa waa arkaysaa ummadda halka tuban iyo sida xaalkoodu yahay Ilaahay baa la baryaa Ilaahayna waa la baryaa waxaanu leenahay cid kasta oo ka qayb qaadatay waa mahadsantiin mid taakuliye mid bixiye mid iska soo hagaajiyay waxaan leeyahay waa mahadsantiin iminkana waxaan u dhiibayaa odayga tuulada deegaanka waxaan aniguna u mahad celinayaa hay'adda Amud Foundation alxamdulillah rabbil caalamiin cuntada inoo keentay iyo caqiibadeeda ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqnaa ayagana wixii dawlad iyo hay'adba sidaas oo kale waxaan doonaynaa inay dadka sidaas oo kale wax loogu qabto macnaha dadku cid walka ay kastaaba ay ka eegato dadka liitay abaaruhu hayaan xooli ka madheen inaan dhagaha loo raadicin sidaas oo kale sida hay'adda Amud Foundation oo kale ay wax ugu soo gulbadaan oo cuntada caqiibada ay u siiyaan ayagana waan u mahadinaynaa hay'adda Amud Foundation horta marka hore Ilaahay baa mahad leh alxamdulillah cid kale waa loo mahadnaqa ma jirto mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa dadka noo keenay caawimada maasha Allah ee faraha badan leh ee maanta loo baahnaa ee dadku u baqtiyay alxamdulillah waxaan ku Ilaahay noogu soo dhiibay ayaa mahad leh waxa kaan u mahadnaqaynaa hay'adda sharafta leh ee Amud Foundation ee noo keentay alaabta quruxda badan leh iyo agabkaas wata iyo raashinka maasha Allah
ayadana waan u mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin sidoo kalena mas'uuliyiinta ka socotay hay'adda caalamiga ah ee Amuud Foundation ayaa gaadhay deegaanka Balli Cabdi ee loo yaqaanay Qudhac Kudle oo ka tirsan deegaanada hawdka ah ee ay ka jirto abaarta adag ee waqti xaadirkan taabatay dadka degan gobolada bari iyagoona halkaasi ugu qaybiyay qaybo ka mid ah deeqihii raashinka ahaa ee ay u sideen waa kan mar kale madaxa hay'adda caalamiga ah ee Amuud Foundation ee bariga Afrika Abduhaab Cige oo ka warbixinaya dadka ku sugan deegaanadani ay soo gaadheen iyo raashinka kala duwan ee ay siinayaan anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Amuud Foundation waxaan hadda joogaa meel la yiraahdo Balli Cabdi oo awal loo yaqaanay Qudhac Kudle waxaana ka mid tahay tuulooyinkii aanu maanta ku bixinaynay 550 qoys raashinkood hadda halkan waxaanu dhignay 250 qoys raashinkood waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaanahu wa tacaala inaan nabad ku soo gaadhnay haddii aanu nahay hay'adda Amuud Foundation waxaanu diyaar u nahay inaanu daa'iman bulshadayada iyo dadkayaga la qaybsano dhibaatooyinka haysta ee horumarka iyo dhinac kasta aafooyinka dabiiciga sida abaaraha iyo waxyaalahaas oo dhan maanta meel fog baanu ka nimid waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey meesha waxaynu taagannahay cadceed ma lay maqlayaa waxaan taagannahay cadceed in ilaahay subxaanahu wa tacaala cadceeddaas inaga soo furto maxaad tidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa ayaan ku dhergaynaa raxmaddiisa ayna wada gaadhi doonta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu samadiisa raxmadda inooga furo aamiin dhaha in ilaahay subxaanahu wa tacaala ina kaafiyo oo bilaadan inaga kaafiyo ayaan baryaynaa in ilaahay roobka inoo shubo cadceeddaas baynu taagannahay ilaahowna sii roobkaaga alla ilaahow roobka noo shub ilaahow ummaddaada qatan ilaahow adigaa raxmadda haya ilaahow gacantaada noo sii daa waxaan dadka ku waarinayaa dhammaan in ilaahay loo noqdo subxaana wa tacaala ilaahay ka cabsada cibaadaysta qof walloba isxisaabi qof haddaan ilaahay loo noqon oo la toobad keenin cadceeddaa wuu inagu sii adkayn doonaa soo raxmadda ilaahay uma baahnin qof walloba u sujuud sidaasaa lagu badbaadayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha iyo mudakarka halkan jooga ee runtii hawshan ka shaqeeyey ee sida quruxda badan le u soo dhoweeyey aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan soo dhoweynayaa odayaasha magaalada waxaan ku soo dhoweynayaa Axmed Cilmi oo gudoomiyahana u dhiibi doona kulaylka iyo bacadka aynu taagannahay inuu inaga soo furto oo raxmad barakale ilaahay inoogu naxariisto sidaa ayaynu ku gaadhaynaa yididiiladeenna iyo ujeeddooyinkeenna marka ay sidaa tahay halkan maanta waxaa inoogu timi oo inoo keentay raashin macaawimo ah hay'adda la yidhaahdo Amuud Foundation waxaynu maanta ka guddoonnay oo aynu ka haynaa 250 qoys raashinkood sidaas waynu kaga guddoonnay waanay ku mahadsan yihiin waxaanaynu doonaynaa haddii alla yidhaahdo wixii kale ee noo heli kareen oo ay kari karaanba inay inoo keenaan waanay ku mahadsan yihiin waanaanu ilaahayna waxaanu ugu baryaynaa in halkay ka keeneen khayr ilaahay ugu bedelo hadalka bacad baynu taaganay badin mayno waxaan ku wareejinayaa oo isaguna kelmad yar inoo odhanaya haydhka magaalada gudoomiyaha magaalada Cabdiraxmaan marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay baynu mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka xigta waxaanu mahadnaq labaad siinaynaa hay'adda Amuud Foundation oo halkan aynu kaga guddoonnay 250 qoys raashinkood waxaan intaa raacinayaa waxa weeye sidaa habsamida leh ee ay waxa weeye ummadeeda u caawisay ee bacadka aynu wada taagannahay ee aynu waxa weeye ay goobtaa waqtiga ay nala taagan yihiin ayaynu u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh marka xigta waxaanu leenahay ilaahay hay naga soo jabiyo abaarta
ilaahay abaarta inaga soo jabiyo roobdoon baynu taaganahay bacad baynu taaganay roobdoon baynu taaganahay ilaahay inaga soo jabiyo ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo qof walba wuxuu ku dhargayaa arsaaqda ilaahay keeno ilaahay arsaaqdiisuna samada jirtaa waxa weeye taasaynu ku dhargaynaa ilaahay ayna siiyo marka xigta waxaan leeyahay mujtamacana sidaas aynu ku gudoominay ee wanaagsan ee ixtiraam kale leeynoogu yimi aynu ku kala dambayno sideedana aynu ku kala qaadano waxa weeye nin waliba wixii ilaahay siiyey bisanka u qabto ilaahayna ka reejeeyo wixii wacan waxaan leenahay raashinka 250 kiisha aynu ka gudoonay aad iyo aad bay ugu mahadsanyiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu injeedatan ilaahay ha barakeeyo rag baa ka soo shaqeeyay annaguna waa kala shaqaynay nasiibkiina idiin keenay dadkii deegaamada idinku wareegsan lahaa ma helin tan oo kale tanuna waa mahad kaloo ilaahay idiin keenay ayadana ku mahadnaqa si wanaagsan oo dhaqdhaqaaq iyo qaylo iyo nidaam xumo iyo midna lahayn baa raashinka u qaybsanaysaan ballankeenuna wuxuu noqonayaa dee haddaa hagaajisaan hay-addii waanu barray meesha madaxda cabdiwahaab ee dadka madaxda waa joogaa inoo keenay haddaad dee wanaagsanaataan dee dad wanaagsan waxbaa la siiyaa waxa inoo ballanay si wanaagsan iyo ilaah bari asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaa ku darayaa dadku maanta waa badan yahay dadku isuma wadaay waxa weeye halaysa saamaxo dad yow halaysa saamaxo ishaabadu markaa way dhacdaay halaysa saamaxo nabcadeennu kalkaasaynu samanta ka soo furmaysaa haddii alla kuu rooyay maantana waxaanu leenahay haddaan noo timaadeen nadaam wanaagsan keenteen ilaahay ha idinku garab galo haddaa arrin dambe la imaataana allah idin garab galo annagu waa idiin ducaynaynaa waana ku mahadnaqaynaa waxaana keenteen ilaahay noo soo siyaadiyo nabcadaas rabada aynu ka sugayno oo dhaqsale allahayna siiyo mid barakale allahayna siiyo mid dal iyo dal tabadeeqa allahayna siiyo اللهم أقسنا برحمتك يا نستغيث إلهي نحرستا نوغو غرغار بانو لنا marka hore ilaahay baa mahad leh thumma alhamdulillah adana ilaahay baa mahad leh ilaahay nimcada ina siiyay caafimaadka iyo maqalka iyo arag waa nimco tan waa laga guuray horta qof walba naftiina ba ilaahay cabsidiisan kula dardaarmaya inta wax xigtay hay'adda iyadana Amuud Foundation ee noo keentay raashinka 250 qoysa ayaan mahad labaad siinaya insha Allah ta'ala inta waxaan raacinayaa nagu imika tuulaahan waxaanu ka tirsanay degmo daad mareed wali inta in leeg wax dawlad ka socda iyo wax hay'ad ka socda aan hay'ada ahayn wali ma hayno marka haddaan u naqaynaa iyo soo dhaweynta gaarka soo dhaweynana waa taa geesta kalena dadweynaha ku sugan deegaanada kala duwan ee Goroyood iyo welibana Balli Cabdi ayaa ka mahad celiyay deeqda kala duwan ee ka soo gaadhay hay'adda caalamiga ah ee Amuud Foundation waxa weeye hay'adaha waxaan ku dhisan musulka waxaan ku aad iyo aad loo soo xasuustay hay'adaas waxaan ku Amuud Foundation waanu mahadnaqaynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa hay'adda Amuud Foundation oo noo keentay kaalmada caawimada ee adarkasaan waxaanu leenahay hay'adda yaddi soo dalsay jazakallahu khayr waxaan kaloo u baaqayaa cid kasta oo halkan u dhalatay in ay dadkoodii jilicsanaa ee xoolaha badankoodii ka dhamaadeen qaar kuwii kalena ay ku dib jiraan inuu soo wixii caawimaa ay tirayaan soo diraan